السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan ku baran doonaa muuqaalkan haddii Ilaahay uu noo ogolaado saddex waxyaabood. kow, sida loo doorto loona saragta-garaysto qoraalka ama wax aad doonayso inaad koobiyeysto ama aad waxaysato. haddii aad doonayso inaad wax dheelad-garayso ama wax ka bedesho ama kalarka aad ka bedesho waa inaad marka hore doorataa. kow, waxaan baranaynaa qaabka loo doorto. sidoo kale waxaan baran doonaa midda labaad oo ah sida loo koobiyeeyo wax loo koobiyeeyo ama loo kadkareeyo oo loo remove gareeyo. midda saddexaadna waxaan ku baran doonaa sida lagu sameeyo drag and drop. qorayntii waxaan baran doonaa qaabka loo doorto. halkan waxaan ku qoranaynaa tusaale ahaan oo kale kulamso. halkaana waxaan ku qoranaynaa ka hooseysa like. halkaana waxaan ku qoranaynaa subscribe. waxaan doonayaa saddexda waxyaabood haddii aanan doonan ma dheelad garayn karo. ayaantii aan sharaxayno kombiyuutarkana waan soo sharaxnay. haddana daawan fadlan ku laabo kombiyuutarka, barashada kombiyuutarka. haddii aad kombiyuutarka aqoon run ahaantii excelka kugu adkaanayaa. marka waxaan kuu diyaariyay ugu yaraan 40 cashar ama 50 cashar dib ugu laabo soo baro. haddii aad doonay inaan wax ka bedelo ama dheelad gareeyo waa inaan doortaa. haddii hadda aan doono ma dheelad garayn karo, ma koobiyin karo, ma kadkarayn karo, wax kama bedeli karo, marka hore waa inaan doortaa. haddaba see ku dooran karaa? dhowr qaab ayaan dooran karaa. kow, inaan 2 jeer klik siiyo. hadda taas ugu doonaya. haddana inaan ka bedelo kalarka waa ka bedeli karaa. waxa aan rabo ayaan ku samayn karaa. hadda guud buu noqdaa. laakiin hadduu saa yahay waxa kama bedeli karo. qaabka labaad, in aan meel banaan tago taasna u soo jeedo. qaabka saddexaad, inaan kan taabto shift na taabto ka oo hoose marka imaadana klik aan siiyo. haddaba taas ugu dooraya waa line-kan. haddii halka aan ku qoro mid kale ka aan ku taabto kaasaan tegayaa. haddana shift waan qabanayaa. ka markaan marayo ayaan dooranayaa. laakiin qaab noocaan oo kale ah waxaan u maleynayaa macquul maaha. halkaasaan doortay, ka markaan marayaan doorto wax oo dhan baa ii doormay marka ma doonayo. haddii aan doonayo inaan kana doorto kaasan doorto kanaan dooranaya marka hore waxaan qabanayaa control kana waan dooranaya. hadda labadaas ugu doonaya imisa saddexaad waliba. qaabka loo doorto. hadda waxaan doonayaa inaan barto qaab wax loo koobiyeeyo loona kadkareeyo. su'aal halkan waxaan ku qorayaa hadda 2021. waxaan doonayaa in halkan ka koobiyeeyo halkaasna ku koobiyeeyo ama warqad kale aan ku koobiyeeyo. adigu si aad rabto inaad u koobiyeysato. haddii aad doonayso inaad wax koobiyeyso saddex qaab maraysaa. qaabka koobaad, inaad waxa koobiyeyna dul tagto right click tiraahdo halkan ka xulato koobi. halkaana aad timaado ka bacdina aad ku koobiyeyso halkaas. waa qaab wax loo soo koobiyeeyo. inaad saa u doorato aad tiraahdo halkan koobi waa kow. midda labaad, inaad halkan timaado oo xaggan ka xulato koobi waa midda labaad. midda saddexaad wax loo koobiyeeyo hadda u jeedaa hay'ad buu dhamaantii saara. ama inaan halka ka xusho ama inaan taabto shortcut-ka ah control C. saddexda qaab ayaa wax loo koobiyeystaa. sidoo kale waxaan baran doonaa qaabka paste loo sameeyo ama meel kale wax loogu paste gareeyo. ayaduna saddex qaab weeye. qaabka koowaad, right click inaan iraahdo halkaana aan ka xusho paste. hadda u jeedaa oo halkan ayaa kasoo koobiyey, halkaana kusoo koobiyey. midda labaad, inaan halkan imaado ribbonka halkan aan ka xusto paste. waa u jeedaa halkan ayaa la ii keenaa. qaabka saddexaad waa inaan taabto control V. ayadana halkan ayaa lagu paste gareeyaa. saddexda qaab ayaa wax loo koobiyeeyaa. saddexda qaab ayaa wax loo paste gareeyaa. haddana waxaan baran doonaa qaabka cut loogu sameeyo ama remove. remove waxa weeye hadda waxaan baranay copy oo halkaana uu ii yaalaa, halkaana uu ii yaalaa xogtu. haddii aan doonayo halka inaan ka remove gareeyo oo dhammaantii halkaan ka tirtiro oo ka qaado saddex qaab ayaa mari karaa. inaan right click halkaan ka xusho, halkaan aan ka xusho cut. haddii cut aan ku dhufto
saas igu soo qoraya. haddii aan dabcan inaan ka qaadano waxaan taabanaya control D, remove ayuu yidhi. halkan ayaa imaanayaa qaabka hadeer ayaan waxaan oranayaa, halkan waxaan ka oranayaa basti. saas igu door, ama halkan ayaan imaanaya waxaan ka oranayaa cut, ama waxaan qabanayaa control X ama control X. saddexdaas qaab ayaa wax loo remove gareeyaa. halkan ayaa imaanaya waxaan ku oranayaa control V ama basti. saa marka ugu soo baxo ayaad waxaa oranaysaa okay, ama halka imow oo halkaa ka xulo basti. saddexdaas qaab waa isku mid. haddaba haddii aad doonayso inaad wax remove garayso, saddex qaab baa maraysaa. inaad cut ka xulato, ama halkaa cut ka xulato, ama control X taabato. haddii aad doonayso copyna, inaad copy hala ka doorato, ama waxaa ka doorato copy, ama inaad taabato control C. haddaan doonayso inaad meel wax ku basti garaysana, inaad taabato V, ama inaad halkaa tagto ka xulato basti, ama inaad halkaa ka xulato ayadoona sidoo kale basti. qaabkaas ayaa wax loo doortaa, loo dirgarayaa. hadda waxaan baranaynaa qaabka loogu sameeyo drag and drop. drag and drop waxaan ka wadaa inaad waxaaga jiidatid oo xagga u jiidatid. tusaale ahaan xagga waxaan ku qorayaa kulamso, hoos haddana waxaan ku qorayaa like, waxaan ku qorayaa saar, waxaan ku qorayaa fadlan. waxaan doonayaa qoraalkaygan in aan u jiito halkaas. haddaba saa haddaan dabco inaan u jiito ii jiidmahayo. haddii aan dabco inaan xoog u jiido ma jiidmayo. haddaba saan u jiido, saa marka igu soo baxo oo falaartii saa noqoto ayaan saa u jiidayaa, saa u jiidayaa, saa u jiidayaa, waxaan dhigayaa. falaartayda say u bedelanta waa u jeedaa. markaas ayaa waxaan qabanayaa left click, anaa xajidaya ayaa inta qabanaya meesha aan doono ayaan dhigan karaa. haddii aan doono dhammaantood inaan qaadana, wadadii hadeer ayaan taabanayaa right click cut D ayaan ugu darayaa. haddana halkan ayaa imaanaya V ayaan ka xulanayaa. qaabkaas waa qaabka wax loo copy garaysto, loona cut garaysto, loona doorto.